cayaarihii weli waxaa socda oo wixii loo yaqiinay knock-outka ayaa socday oo England iyo waxaa isale kooxda Slovakia. Englandna waxaan ognahay inay haystaan cayaaryahanno waaweyn oo Premier League ka dheelo aad iyo aad u fiican, hase yeeshee cayaartii lagu yaqiinay ilaa hadda maysan soo bandhigin. oo waxaa la ogaaday England markay cayaarayso in kooxaha inta badan ee afka hore ay ku qabtaan, Ingiriiskana uma suurtagelaysa inay kubadaha iska soo saaraan. taas ayay Slovakia istuseen iyo kooxihii dhammaan ay la wada cayaarayeen. taas ayaana waxay keentay intay xumadoodii ay guul ay gaari waayaan oo inta badan ay dhibaato ku noqotaba kooxaha yaryara intaaba loo gudbinba kooxihii waaweynaay. oo waxaan la soconnaa qaybtii hore in gool lagala hormaray, hase yeeshee saacadihii ugu dambeeyey Jude Bellingham oo gool aad iyo aad u fiican oo waxa laba lugoodkiisa loo yaqaano oo ka dhaliyay saacadii dheeraadka markii lagu darana gool oo Evan Toney gadaal laga keenay oo madax oo ugu baasay Harry Kane oo goolkii labaad uu ku dhaliyay. hase yeeshee Ingiriiska waxaa u malaysaa in aysan koox aysan u muuqan oo difaacaan aysan ficnayn, dhexdooda aysan ficnayn, weerarkoodan oo aad iyo aad u liito aysan maantana nasiib ay ku soo badiyeen. su-aasha waxay ka taagan tahay intay sii soco karaan oo nasiib ay kusii soco karaan. oo markaa fiiriso Bukayo Saka iyo Phil Foden oo laba ciyaartooy aad iyo aad u fiican oo City iyo Arsenal u kala dheelo geesaha ka socda inay socon la'ayeen ay weerar qaadi lahayn oo Bukayo Saka markuu kubadda la siiyo inuu gadaal kubadda u soo celinayo ousan haysan wax kubadda la cayaara ama si fiican ugu dhigo oo nambarka labaad iyo nambar 10aad oo markuu Arsenal joogo waxaa u dhow Odegaard la cayaaro iyo Ben White. taas ayaa waxay u fududaysaa si sahla inuu ku galo. dhanka kale Phil Foden waa la soconnaa, Kevin De Bruyne ciyaaryahanno fiican oo dhexda ka dheeli inay haystaan. marka isku soo duuduub Ingiriiska waxaa u malaysaa khaasatan cayaartooyda dhexda ciyaaryahan Declan Rice oo u cayaara kooxda Arsenal oo kubadaha markay isu dhiibaan kubadda inuu soo saaro la rabo kadibna uu gudbiyo Jude Bellingham laftigiisa inkastoo goolkii barbardhaca uu dhaliyay haddana wuxuu u muuqda ciyaartooygii Real Madrid uu cayaaraya inuusan ahayn oo nooc kale oo ahay. England marka isku soo duuduub waxaan qabaa qadka ay ku socdaan ama dhinaca ay ku dheelayaan oo ay la cayaari doonaan Svizzere. cayaarta maanta ay soo bandhigaan haddii Svizzere kala hortagto waxaan qabaa Svizzere si fudud inay u adkaa karto. dhinacaas ay ku socdaan inuu yahay dhinac aad iyo aad u fudud oo Svizzere iyo Ingiriiska iyo Holland iyo ku jiraan oo dhinacaas waa dhinac aad iyo aad u fudud. laakiin dhinaca kale ayaa aad iyo aad u adag. marka Ingiriiska fursad ayay haysteen ay ku soo socdaan ay wax ku sameeyaan oo dhinac fiican ayay ku jireen, laakiin waxaa u muuqata inay iska faa'iidaysaneen. tababarahoodana waa tababare inta badan difaaca aad iyo aad u ilaaliya oo cabsada oo aan weerar inta badan aan qaadan. oo Czechoslovakia wax weeraro ay ku qaadeen ma jirin, wax cabsi ay ku hayeen may jirin. inkastoo Czechoslovakia markii dambe ay difaac ay gashay, ma ahayn difaac inay gashay, inay weerarka iyo kubadhaysashada ay wadeen inay sii wadaan eed waxaana qabilahay inay guul ay gaari lahaayeen. laakiin marka dambeysaba gadaal ayay usii sikanayeen, qaladaad badanna way galayeen oo calaamadda yelowga ayaa loo taagayay. laakiin maalin waxay ahayd oo England ay nasiib ay lahayd oo ay heshay 3 dhibcood. waxaana qabaa haddii saan Svizzere ugula tagto Svizzere inay sida Talyaaniga oo kale ay ku sameynayso kusoo dhawaan doonto, afka horena ku qaban doonto. Czechoslovakia ay ka fiican yihiin, kana tayo fiican yihiin, ciyaartooy Premier League ka dheelan ay haystaan, dhaliyana ay haystaan oo golol ay ka dhali karaan. marka Ingiriiska ma qaba meel inuu gaarayo oo koob inuu qaadayo, ma u malaynayo saan haddii uu kusii socdo, mana u malay doono wax iska bedelo weyn imaa kale inay jiraan. marka dhanka kale waxaa wada cayaaray oo aan la soconnaa Spain iyo Georgia, oo Spain 35 mar ayay goolka waxay toogatay Georgiana hal mar xataa Spain ma toogan. Spain waa kooxda ugu fiican ilaa hadda aan aragnay oo cayaaraha Euro ah. laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay goolka markii laga dhaliya xataa wax cabsiya maysan soo gelin oo cayaartoodii ayay sidii u wadeen oo kalsooni ayay qabeen. cayaartooy ma bedelan, qaab ciyaareedkoodana ma bedelin, sidii kubadda ugu wadeen ee aad iyo aad ugu dhaqaajinaan. Spainna waxaan la soconnaa inay haystaan 2 ciyaartooy oo aad iyo aad u fiican oo geesaha ka dheela, Nico Williams iyo Yamal inay haystaan, taasna ay saacidayaan ee aad iyo aad ugu dhawaanayaan. Fabian Ruiz iyo Dani Olmo oo asigana aad iyo aad u fiican oo gool dhaliya xataa oo dhanka ku dhawaana. Rodri inuu yahay cayaaryahanka ugu fiican ee difaac ilaali ee dhexda ka dheela ee maanta adduunka aan dhihi karaba inuu ugu fiican yahay oo goolkii barbardhaca sida uu dhaliyay dhinaca
dhinacaas midigta ayuu baasay, bidixdu u dhiibay, haddana waa lagu soo celiyey, wuu toosistay, kubad aad u qurux badan oo hoose ayuu ka dhaliyay. taas waxay ku tusaysaa tayada uu leeyahay. Olma laftigiisa goolkii afraad ayuu ka dhashay, oo waana xariiqinta 18 galaya, difaacana aad iyo aad waxaasoo dhanna waxaa caawinaya kubad si iskugu dhidhiibaan iyo dhaqsaha iyo meesha isu dhigaan iyo labada geeso ugu fiican ay haystaan. laakiin ani Spain waxaan qabaa haddii koox Faransa oo kale oo Mbembe oo kale iyo Ousmane Dembele oo kale oo aad u dheeray haddii u yimaadeen inay ka adkaa karaan oo weerar celinta in looga faa'iidaysan karo, sababtoo aad iyo aad u furan yihiin. ma aha koox gadaal u sikata oo difaac gasha ma aha, laakiin inta badan kubaddayba ka haynayaan, marka dhibaato badan oo soo gaari karto aba aad iyo aad u yar. marka Spain waxaan qabaa ilaa hadda inay tahay kooxda ugu fiican. anigana xaqiiqadii 8 koox oo soo baxayso 4 ka mida way soo baxday, laakiin England iyo Switzerland waxaan qabaa inay ciyaartaas 50-50 ay tahay, ay dhankay u dhacayso aan la xaqiijin karin, ciyaar isu dhadhow ay tahay oo England aanan dhihi karin way badanaa. laakiin Spain Jarmalka ayaa imaan doona, waa ciyaar aad iyo aad u adag oo Jarmalka waxaan la soconaa gurigooda inay joogaan, ay taageerayaashooda haystaan. laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay kubadaha isku dhidhiibka ay sameynayaan sidee u jooji karaan Jarmalka. waan ognahay Jarmalka laftigiisa tayadiisa aad iyo aad inay u liidato, dhexdoodana inaysan sidii aysan ahayn Spain oo kale. Spainna wax walba ku yimaada makaa joojinayso kubadaha baaska, khaasatan difaacooda xataa bidixda midigta aad iyo aad ku Kurella waxaan la soconaa markuu Chelsea u dheelay iyo markuu qaranka Spain u dheelay inuu kala duwan tahay, oo kubada aad iyo aad u fiican oo weerar ka qayb qaadanaya, kubadiisana aad iyo aad u dheelaya. marka ani waxaan qabaa Spain inay Jarmalka ka adkaa kartay tayo ay haystaan, khaasatan labada wiilo aad aad u yaryar oo William iyo Mel kubadda markay qabsaan si toos difaac ayuu la aadaan. difaac hadday yimaadeenna laba ciyaartooy oo dhexda ka dhiisha ayaa ku dhow oo ay dib ugu soo celinayaan, ciyaartooydaasna waxbay sameynayaan. taas marka waxay ku tusaysaa sida Premier League oo kale aan ku aragna Arsenal iyo City, oo markii ciyaaryahanada geesaha ka dheelo, ciyaaryahana dhexda ka dheela ayaa ku dhowaado, dhexdana waxay noqotaa meel cidla ayay noqotaa oo nambarka 8aad ayaa looga tagaa, iyo ciyaaryahanada bidix mid ka dheelo difaac ah. taas ayaa waxay keenaysaa culeeg xoos leh in la saaro kooxda kale. laakiin England qaabkaas kuma dheesho, mana ku dheeli karto, oo tababaraha nidaamkaas inuu u samey karo ma u maleynayo. Spainna sidii ay Georgia ku samaysay waa sidii Talyaaniga oo kale ay ku samaysay, ay daalisay. waxaana qabay 4 ay ka dhaleen, laakiin in ka badan ayay ka dhali kareen siday kubadaha ugu wadeen. waa koox 35 mar la toogtay oo 4 gool keliya laga dhaliyey, intaas ka badan ayaa looga adkaa karay, laakiin wax fursado badan ayaa aysan dhali waan u suurtageli weysay. kooxdan markay kubadaha isu dhiidhiibaysa Spain waxaa u malaysaa qof walba inuu fursad helayo, oo ciyaaryahankan Rodri waa la soconaa goolka inuu ka dhaliyay, ciyaaryahan kale Nico Williams oo dhinaca jooga gool aad iyo aad u qurux badan inuu ka dhaliyay, ay qoys beelaan, ay si sharaf leh uga badiyaan Georgiana aysan dacwo qabin, oo la tusay in laga tayo fiican yahay la tusay. marka Spain iyo Jarmalka waa ciyaar aad u fiican. dhinacaasna waxaan qabaa Spain aad joogto, Jarmalka aad joogo, Faransa aad joogo, Belgium aad joogto, Portugal aad joogo. dhinacaas waa dhinac aad iyo aad u adag oo safkaas kooxdii finalka ka timaada waxaan qabaa dhanka kale oo England iyo Holland iyo ay jiraan, iyo kooxdan kale Switzerland iyo Turkiga iyo waxaan qabaa iyo Romania dhinac fudud inuu yahay. kooxdanna dhinacan ciddi ka soo baxdo final timaada waxaan qabaa final aad iyo aad u fudud inay heli doonaan, oo ma filaya ciyaar weyn inay dhici doonto oo laba koox isku awood inay isku imaan doonaan ma u maleynayo. oo dhinacan ciddi ka timaado waxaan qabaa si fudud inay u badi doonaan, ay guushana gaari doonto. ilaa haddana ciyaarihii aan aragnay waa waddanka Spain ayuu ciyaar fiican una awood badan. marka waa sugaynaa bal berrito Belgiumka iyo Faransiiska waxaa ka soo baxa waa ciyaar aad iyo aad u adag laftigeeda, oo Mbembe iyo Doku ayaa isku fiiri doonaa bal guusha raaci doontaa.